iyadoo maalin ka hor dalka la soo gaarsiiyay shixnadii ugu horeysay ee talaalka COVID-19 ayaa murashax madaxweyne Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi waxa uu ka mid noqday siyaasiyiintii ugu horeysay ee qaadata talaalkan looga hortagayo cudurka coronavirus. murashax madaxweynaha Soomaaliya mudane Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi oo maanta booqday cisbitaalka Martini ayaa qaatay talaalka AstraZeneca isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay qaataan talaalka si ay uga badbaadaan cudurkan halista ah ee COVID-19 loo yaqaano. murashax madaxweynaha Soomaaliya Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi ayaa dadka walaaca ka muujinaya talaalkan waxa ugu laab qaboojiyay in talaalku yahay mid waxtar leh oo soo maray tijaabooyin caalami ah oo caafimaad isla markaana uusan lahayn wax saameynah maadaama uu isagu qaatay. Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi ayaa ah shakhsi wax badan ee ku soo jiray howlaha caafimaadka isla markaana si weyn u garanaya howlahan oo kale, waxaana talaabadan uu maanta qaaday murashax madaxweyne Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi ay rajo wanaagsan gelisay shacabka Soomaaliyeed oo iyagu cabsi iyo walwal badan ka muujinayay talaalka COVID-19. waxa uu dhinaca kale murashax madaxweyne Cumar Cabduqaadir Axmed tilmaamay in talaalku uu isagu maanta qaatay uu wax badan ka tari doono xaaladda cudurka COVID-19 ee Soomaaliya maadaama mar kale uu cudurkan ku soo laba kacleeyay dalka isla marhaantana maalmihii u dambeeyay ay dad fara badan ee cudurka u geeriyoonayeen. murashax madaxweyne Cumar Fiqi ayaa sanadkan u tartamaya xilka ugu sarreeya ee Soomaaliya, waana mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu cadcad ee ku guuleysan kara doorashada madaxweynaha Soomaaliya marka lagu heshiiyo doorashada sanadkan dalka ka dhacaysa, maadaama weli si weyn la isugu khilaafsan yahay hanaanka doorasho ee dalka. Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Goobjoog, Muqdisho.